guddiga doorashada Galmudug ayaa maanta si rasmi ah ula wareegay liiska xildhibaanada Ahlus Sunnah ay soo gudbiyeen oo ka kooban 20 mudane. gudoomiyaha guddiga farsamo ee maamul dhisidda Galmudug Cabdinaasir Geelle ayaa xafiiska madaxa xukuumadda kula kulmay Sheekh Shaakir isagoo ka gudoomay liiska xildhibaanada ee Ahlus Sunnah ay soo gudbiyeen kaasi oo waafaqsan heshiiskii hore u gaareen dawladda iyo Ahlus Sunnah wal Jamaaca. gudoomiyaha guddiga doorashada Galmudug Cabdinaasir Geelle ayaa tilmaamay in xildhibaanadan ay soo buuxiyeen shuruudaha guddiga ayna ku yimaadeen hab waafaqsan heshiiskii hore loo gaaray. anagoo tixraacayna heshiisyadii hore loo galay oo ku astaysan nambaradoodii iyo ay sumadahoodii waraaqdan ay ku astaysan yihiin. waxaan halkan ka sheegaynaa maanta aan hadaan guddigii maamul dhisidda iyo doorashooyinka Galmudug in aan liiskaas aqbalnay liiskaas oo soo maray dhammaan shuruudihii la iska rabay ka mid noqoshada maamul goboleedka Galmudug xildhibaanadiisa. intaas markii laga tago waxaan rabaa inaan mahad ballaaran u jeediyo cid walba oo ka soo qayb qaadatay in aan maanta meeshaan joogno imaano in heshiis laga gaaro waxyaabihii khilaafaadkii jirjiray in muddaba soo ragaadinayay maamul goboleedka Galmudug. waxaan si gaar ah ugu mahad celinaynaa qaybtii ay ka soo qaateen nabadeynta iyo maamul dhisidda iyo bulshaweynta Galmudug abaalka iyo wanaagga ay ku leeyihiin xurmadiinka Ahlus Sunnah wal Jamaaca ayaan si gooni uga mahad celinaynaa. waxaan kaloo mahad celinaynaa dhammaan bulshada reer Galmudug qaybaheeda kala gedisan oo ugu horeeyaan odayaasha dhaqanku oo ayaguna qayb weyn ka soo qaatay aqbalayna in maaragtay arintan ay ku dhamaato xal nabadgelyo oo ay ayagoo fiirinaya danta iyo maslaxadda ummadda reer Galmudug. waxaan mahad kale u jeedinaynaa dawladda federaalka Soomaaliya oo ayaduna qayb muhiim ah oo libax ka soo qaadatay in ay maanta meesha aan marayna aan soo gaarno iyo dhammaan cid walba oo lug ku lahayd maaragtay insaan ay wuxuu dhacaan. waxaan rajeynaynaa hadduu alla idmo in aan hadda wixii ka dambeeya maadaama in muddo ahba aan usoo xayirnayn isku soo dhaweynta iyo wada xaajoodka iyo in arrintan xal nabadeed lagu dhameeyo. waxaan hadda wixii ka dambeeya aan gudageli doonaa dhammaystirka inta noo dhiman iyo xulista xildhibaanada noo haray ee 69 xildhibaan ah oo aan rajeynaynaa haddii alla idmo inaan sida ugu dhaqsiyeeda badan aan ku soo dhamaystirno. waxaan ugu cudar daaranaynaa bulshooyinka reer Galmudug maaragtay daahida iyo dib u dhacyadii tirada badnaa ee ugu yimid anagoo aan arkaynin in dabcan markasta inay tahay in maaragtay la soo gaaro meesha aan maanta marayno ayaan uga cudar daaranaynaa. waxaan rajeynaynaa haddii alla idmo in inta dhimanna aan sida ugu dhaqsiyeeda badan aan usoo dhamaystirno. madaxa xukuumadda Galmudug Sheekh Shaakir ayaa isna dhankiisa guddiga uga mahad celiyay hawsha ay qabteen isagoo tilmaamay in xildhibaanadan ay qayb ka noqon doonaan 89 mudane ee baarlamaanka Galmudug. liiskii xildhibaanada qaybtii ugu horeysay ka imaanaysay culimada diinka Ahlus Sunnah wal Jamaaca sida wanaagsan oo ay ula wareegeen ayagoo soo maray shuruudihii loo baahnaa ayna noqon doonaan biidnillaahi alkariim xildhibaanadii 89 ka ahaayoo Galmudug aan rajeynayno in ay samata bixiyaan Galmudug loo dhan yahay, Galmudug mid ah, Galmudug biskooto baraaro ku biskoota hormarta aan rajeynayno inay wax weyn ka tari doonaan haddii alla idmo. Abdullah Warsamo Roble, Somali News TV, Dhuusamareeb.